بسم الله الرحمن الرحيم. قف كستو halkan fadhiyo mansabka ku fadhiyaan ku salaam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Haddaan toos u guda galo qodobada aan ka qabo aragtida. Qodobka koowaad farqada koowaad Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah muslim ah sunni waxaan la qabaa dadkii ku daray in lagu daro muslim sunni ah. isla qodobka koowaad farqadiisa shanaad waxaan qabaa gobonnimada madax bannaanida midnimada qaranka iyo xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu xadgudbaan. waxaan rabaa in lagu kordhiyo maadaama ogtihiin jamhuuriyadda inay bad iyo bariba tahay iyo webiyo oo baryahan xaaladii badda ay taagneed maadaama dastuurka black and white uu yahay in lagu cadeeyo jamhuuriyadda iyo xuduudaha bad iyo bariba in lagu daro meeshaas midnimada qaranka iyo xuduudaha bad iyo bariba ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu xadgudbaan. sidoo kale qodobka labaad farqadiisa koowaad waxaan qabaa ayadana in lagu beeriyo sida dadkii iga horeeyay ay sheegeen islaamku waa diinta dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. markii horena waxaa qornaa islaamku waa diinta dawladda. meelo badan dadka laga soo galay marka waxaa la rabaa ayada nafteedu in la cadeeyo oo aan sida meelna aan looga soo galin aan u qorno islaamku waa diinta dalka dadka iyo dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan u wada dhameeyno si aysan u dhicin dad gaar ah islaam maahane jamhuuriyadda iyo inta ku dhex jirta islaam ah. sidoo kale waxaan qabaa qodobka labaad farqadiisa saddexaad maadaama farqadiisa saddexaad in lagu beeriyo meesha ugu dambeyso waxaana lala tiigsanayaa xeerarka jamhuuriyadda kaliya lagu ekeeyay. marka jamhuuriyadda waaye jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo in la waafajiyo shareecada islaamka maadaama dalka oo dal muslim yahay sidaana loo qoro. inta badan waxaa reeban caayada diinta islaamka karaahiyada iyo wax kasta oo wax u dhimayo xushmada arrimaha diinta islaamka. qof kasta oo u gafa islaamka waxaa lala tiigsanayaa xeerarka jamhuuriyadda kaliya la qoray jamhuuriyadda waaye marka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed lana waafajiyo shareecada maadaama dalku uu yahay dal muslim ah. farqada labaad qodobka labaad sidoo kale farqadiisa afraad waxaa qoran lama soo saari karo xeerar meesha sharciyada dhan xeeraa lagu bedelay waa qaba lama soo saari karo xeer aan waafaqsanayn shareecada islaamka iyo maqaasidiisa qoran. waa ogtihiin oo baarlamaankeena xeer kaliya ma soo saaro qaraaro mararka qaar soo saara. haddii qaraar aan waafaqsanayn shareecada islaamka la soo saaro maxaan dhahaynaa oo waana ogtihiin oo dastuurka mar haddii wax laga bedelo nin walba waa xigana ninkii positive u xigtay ninka negative u xigtay meeshaas waxaa rabaa marka maadaama baarlamaanka wuxuu soo saara qaraaran ay ku jiraan in lagu kaabo lama soo saari karo xeer ama qaraar aan waafaqsanayn shareecada islaamka. qodobka saddexaad farqadiisa shanaad qaabka ay u qoran tahay waxaan rabaa in siiqada laga bedelo meesha laga leeyahay horta dawlad goboleeda qoran dastuurkana hadda dib u sixid lagu sameeynaya. waxaan qabaa sida sharcigaba xeer loogu bedelay meelaha dawlad goboleedyada ay ku qoran tahay oo dhan in maamul goboleed laga dhigo sababtoo ah dawladda waxaa la adeegsanaa magac dawladeed heshiisyahana lagu soo galo caalami ah
mararka qaarna waxaa laga yaabaa in loogu soo gabadaba meelahaas marka inaan caddeeno in sida loo kala sareeyo awoodaha dastuurkeena wax badan oo iska hor keenaya in la qeexo in dowlad goboleedka meeshaas lagu caddeeyo meelaha hadda waxaa qoran meeshaan heer dowlad goboleed haweenka waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay'adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed qoran marka meeshaas in waxaan qabaa aragti ahaan maamul goboleed lagu bedel iyo dowladaha hoose si wax ku oola lana sugo gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo waxaan rabaa in siiqada laga bedelo oo loo qoro si wax ku oola oo waafaqsan shareecada islaamka ah dhammaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isku magacaabo meeshaas in siiqada qaabkaas loo waafajiyaan qabaa sidoo kale qodobka 6aad farqadiisa 3aad iyo farqada 5aad arinta hadda sheegayo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada ku qoran labada farqoba hadaa fiirisaan waxa in la waafajiyaa rabaa oo hal style ay yeelato lana kala ogaado dowladnimadu dowladda federaalka in loo daayo wixii ka hooseeyna maamulo gobol oo isku tagay oo maamul goboleed dhahan qabaa qodobka 8aad farqada 1aad iyo farqada 4aad ayaan wax ka qabaa waa qabaa aragtida ahayd Soomaaliya aan la qoray farqada 1aad qodobka 8aad waxaa qoran Soomaaliya qoran arintaas marka Soomaaliyana maadaama jamhuuriyadda ee laba state ay tahay in la qeexo oo sida loo qoro Soomaaliyeed sidee marka hore u qorneed in loo daayaan qabaa farqadiisa 1aad farqada 4aad oo gabigeedaba la tiray oo ay ahayd diidmada laalista iyo ka qaadista jinsiyadda laguma xiri karo asbaabo siyaasadeed saasaa qorneed markii hore guddiga waxayba qodobkan waaba ka tuureenba meesha in de qofka jinsiyadiisa looga qaadi karo arrimo siyaasadeed waa la kala aragti duwanaan karaa waxyaabo siyaasadeed oo wixii dhici jiray oo haddaba qaarkood ay taagan yihiin marka waxaan qabaa qodobkan sidiisaba qofka jinsiyadiisu ilaalinayay in sidiisa loo soo celiyo oo aan laga tirin oo aysan keenin confusion waa mahadsantihiin intaasaan aragti ahaan ku biirin lahaa asalaamu calaykum mahadsanid xildhibaan